Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. dukumeentiyo la helay ayaa sheegaya in madaxda waddanka Mareykanku ay maran habaabiyeen muwaadiniinta Mareykanka gaar ahaan arrimaha ku aadan dagaalka dalka Afghanistan kaas oo noqday mid daba dheeraaday. dukumeentiyadan oo yeeshay wargeyska caanka Washington Post ee waddanka Mareykanka ayaa waxaa ku jira waraysiyo iyo sidoo kaleeto barnaamijyo gaar ah kuwaas oo dawladda Mareykanku isugu dayday inay ku qariso jabka ka soo gaaray dalka Afghanistan. dagaalka Afghanistan ayaa waxa uu madaxa galiyay sanadkii 18aad. dukumeentiyadan waxaa ku jira hadallada saraakiil sare oo ka mid ah militariga Mareykanka iyo diblomaasiyiin, balse dawladda Mareykanku waxay isku dayday in dukumeentiyadaasi ay ka qarido shacabka Mareykanka. laakiin majalada Washington Post ee waddanka Mareykanka ayaa heshay xaqa ay ku baahin karto dukumeentiyadaasi kadib markii ay gashay dagaal dhanka sharciga ah muddo 3 sannadood ah. jenaraal hawgab ah oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee lagu magacaabo Douglas Lott, kaas oo la soo shaqeeyay madaxweynayaashii hore ee Mareykanka George W. Bush iyo madaxweynihii hore ee Barack Obama, ayaa sheegay in haddii shacabka Mareykanku ay ogaan lahaayeen dhibaatada ka soo gaartay dawladooda iyo dadkooda dalka Afghanistan ay dadku kici lahaayeen. Lott ayaa sidoo kale soo xigtay warbixin ay soo saartay wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka, taasoo sheegaysa in tan iyo markii Mareykanku Afghanistan ku duulay sanadii 2002 ay kaga dhinteen askar gaaraysa 750,000 oo askari ayna dhaawacmeen 20,000 oo kale. Lott ayaa dhaliilay arrintaasi waxa uu sheegay in ay ka badan yihiin askarta Mareykanka ah ee laatay. Professorada caanka ah ee culumta siyaasadda dhigta ee lagu magacaabo Nita Crawford ayaa iyana sheegtay in wakaaladda horumarinta dawliga ah iyo wasaaradda difaaca Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay ku bixiyeen lacag gaaraysa 934 bilyan ilaa 978 bilyan dagaalka dalka Afghanistan. wargeyska Washington Post ayaa sheegay in qarashkaasi aanu ka mid ahayn midka lagu bixiyo hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da iyo hay'adaha la jaalka ah ee la shaqeeya. lacagahan ayaa waxa ay gaarayaan $1 trilyan Mareykanka ah. Jeffrey Eager oo ah mid ka mid ah shaqaalihii la soo shaqeeyay madaxweyne Bush iyo madaxweyne Obama, kaas oo ka shaqeynayay muddo badan aqalka cad ee Mareykanka, horeyna u soo ahaa sargaal ka tirsan ciidamada Mareykanka ee gaarka ah, ayaa yidhi maxaanu ka helnay juhdiga iyo dadaalka aan ku bixinayna Afghanistan. waxaan luminay $1 trilyan. ma mudan yahay $1 trilyan in lagu baxsho? wuxuu intaa ku daray Jeffrey Eager, kadib markii Osama bin Laden la dilo waxaan u jeedaa Osama bin Laden oo ka dhex qoslaya qabrigiisa biyaha ah isagoo oo og lacagta faraha badan ay ku bixisay dawladda Mareykanku dagaalka Afghanistan.